allaha u naxariistay Saare Axmed Jaamac waqtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaanay markii dambe u soo wareegtay magaalada Hargeysa walow ay badnaayeen dadka ay mihnad wadaagta iyo wada shaqaynta lahaayeen haddana abwaan maxamed aadan dacar oo ka mid ah dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey dhaqanka markay soo gashay ayaanu isbaranay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara markaa waxay dhigtay riwaayadii ugu horreysay ay ku soo baxday riwaayad la odhan jiray garashaa garab weyday hadse mooye la gaadho ina sireen bedelahaa taasaa ugu horreysay ay dhaqanka markaasay ku noqotay fanaanad caana marka waan iska warayno dee dad waxaanu hayn annagu dadka yagaa hore ul keliyaanu hayn oo walaalaanu hayn maanu kala lahayn qabiil maanu kala lahayn ma garanaysaa nabcaashiye ma kala lahayn wax isnacab maanu lahayn aan la kala weynaado aan la kala hawl bato qofka socdo laakiin haddana jidhkaa isku yaallo kalaanu haynoo xaggaana waanu wada joogno la dhammaan wada joogno halkanna waanu wada joogno markaa waan iska warrayn waxay ahayd inan aan la heli karin karti baa ilaahay u dhaliyey dadku wuu kale karti badiyey karti bay dheerayd dadka dhaqanka maxayna kale dheerayd ubad koris bay ahayd carruur badan bay dhashay Sahri wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu koriso oo ay u shaqayso waxay dadka dheerayd way naxariis badnaydoo had iyo jeer idinkoo waxba hayn ayay dad bay marka kuwan wax siiya kuwan wax keena intaas soo heshaanba intaasay kale u sii qaybin jirtay oo islaasay u qaybin jirtay mise jir bay qiyaastii marka ay dhaqanka soo gali doonto kolley igama yareen aniga wax badan igama yareen imika waxay u baahantahay in inta loo duceeyo ilaahay loo baryo lana saamaxo kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay Saare Axmed Jaamac Kasokow abwaan saxaardiida oo maxamuud cilmi jabiye ayaa isaguna iiga sheegay waxaanu isbaranay 68kii iyadoo kolkaa riwaayad sida gabadh dadka naxariis badan ayay ahayd iyadoo naxariis u badan siba dhalinyarada u sii naxariis badan oo kii leexsan ma tiraahda isay u teerin karto ku fikiri jirtay Boob Yuusuf Ducaale oo qoraa iyo kaydiyay taariikheed ayaa isna Saare Axmed Jaamac ku sifeeyay aniga markii waxa igu horeysay Jaaliya Jacayl oo aan galay 1972 anigoo markaa Talyaaniga iyo Sacuudiga ka yimid waxay ahayd foolaadka fanka Soomaaliyeed guud ahaanba Saare Axmed Jaamac qofka ahayd waxa ku sheegayaa inay Saare ahayd Saare waa ogtiinoo fanaaniinta mid walba magac baa ku ladan gaar ahaan dumarka Saare waa gabadha ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday Saare Axmed Jaamac oo qof waliba oo Soomaaliyeedba dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan bay dhigtay u raaricin jireen riwaayado badan bay lahayd oo ay jishay heeso badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahay waxaan si gaar ah u xusayaa inay sanadihii ugu dambeeyay aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee Balligubadle oo ay nala dhamaystirtay halganka hubaysnaa abwaan Muuse Cali Faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihnad wadaagta ahaayeen isla markaana riwaayadaha u dhiibay waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir weliga aanad ku arkahayn waxay ahayd mid dabeecaddeedu cidnaba aanay diidahayn iyaga oo riwaayad dhigay la odhan jiray garashaa garbooda ina islaama midda u dhiibay ayaa riwaayada sameeyo la odhan jiray tii ugu horreysayba waalida rag iyo weerarka hablaha la odhan jiray waalida rag iyo weerarka hablaha ayaa la odhan jiray markaa waxay ahayd adrishadii waxay ahayd ama inantii agtarada ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf jilaagii koowaad bay ahaayeen iyada iyo maxamed jilaaga koowaad bay ahaayeen iyo kolkaa riwaayadaasi waalida rag iyo weerarka hablaha waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay riwaayada ya'danoo riwaayada ya'du ay badan ay ku jirtay sida geel yibiladay dhulaya maaragluya yuxub doonashaa uyo hoomad oo yaahdaanahe waxaan yu-anayaa yacay inaan dhignaa adna ila yagleel maxamed yusuf bay wada qaadayeen adna ila yagleel oo ila yabyaba arrimiyu gidhaa yabaalane haynaga yeldinayaa baad dhigtee yahanaad heshood la yabaalatee waxaan yu-anayaa yacaygiridde ma yagleelayaa riwaayadaas saasay ku jirtay riwaayadaasi anigaa u dhiibay waxay ahayd inan aad u cajaa'iba nebi ammaanku waxay qayb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee Saare Axmed Jaamac qaaday sida uu VOA u sheegay abwaan maxamed aadan dacar dhaqankana
xagga nebi ammaanka iyo qasaa'idka iyo waxay ahaayeen ma garanaysa ninkii allah u naxariistay maxamed cali kaariye iyo ay lahaayeen dee berigii dambe xaggan unbaaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin saare axmed jaamac waxay ifka kaga tagtay 32 carruur ah oo isugu jira 8 ay dhashay iyo inta ay sii dhaleen saaka ayuu ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo maalmihii u dambeeyay ay xanuun u jiiftay waxaana mar dhaweed lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee Hargeysa barkhad maxamuud kaariye VOA Hargeysa